بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkaas ka sii wadaynaa cashiradeenii taxanaha ahaa ee Omai Exchange ay ugu talagashay dhammaan dadka ku xiran inay ku bartaan cilmiga cryptocurrency-ga. Waxaan ka hadlaynaa maanta haddii la yiraahdo wax loo yaqaano decentralized finance oo ah runtii ciwaan weyn oo markii lagu dhex jiro cryptocurrency-ga oo aan jeclahay in badan maqasheen. Decentralized finance waxa la yiraahdaa intaana waxa la dhahay wuxuu yahay horta aan ka waramin waxaan ka hadlaynaa wax loo yaqaan waxa soo sheegnay fiidiyoyadii hore iyo sidoo kale cashiradii ugu horeeyayba bitcoin inaanan macnaha inaysan controlin wax government ah sidoo kale wax bangi ah uusan controlin no central authority controls the bitcoin waa soo sheegnay sidoo kale waxa soo sheegnay in cid kasta ay diri karto cid kastana loo diri karo sidoo kale bitcoin inay tahay decentralized money saddexdaas baa soo sheegnay haddaba waxa isweydiin mudan in lacag la diro iyo in lacag lagu soo diro oo aad hesho kaliya finance-geena kama koobna oo waxa ognahay adeegyo dheeraad ah inay jiraan oo markaas adeegyadaas iyo lacag diristii wixii dhan markii la isku daro ay sameysmayaan ama ay ka kooban yihiin financial system-ka hadda aan leenahay haddaba additional services-ka waxaa ka mid ah sida loans-ka saving plans-ka inaad leedahay insurance oo kale inaad samaysid iyo waxyaabaha la mid ah waxaasoo dhan marka saa ognahay hadda waqti xaadirkan ama sida caadiga aba waxay nooga xiran yihiin ama aan u daba fadhinaa mar kastaba wax loo yaqaano bangiyada ama authorities kale sida maxaa la dhahaa shirkadaha insurance-ga bixiyo kale ama ashkhaasta insurance bixiyo kale waxaasa uga daba xirannahay that is the finance-ga noocaasa waxaa loo yaqaanaa centralized finance oo ah finance oo aad u daba fadhiso adeegiisa qof ama shakhsi ama bangi ama authority kale sida dawladda haddaba centralized finance-ga marka waxaan dhahnay inay ku xiran yihiin dhammaantood wax loo yaqaano central authority sidoo kale haddii marka ay central authority ku xidhmaana sida hore aan usoo sheegnay markasta qofka uu shay asiga uu ku xiran yahay oo aanan loo daba dhaafi karin waxaa laga yaabaa inuu ismahadiyo ama uu u arko arrintaas awood wayba tahayba awooddaas hadduu helana waxay keeni kartaa inuu waxyaabo qaldan sameeyo sida inuu mismanagement sameeyo in corruption uu sameeyo in fraud uu sameeyo oo uu wixii inuu dadkii gaado isku dayo haddaba si waxaasoo dhan looga fogaado maadaama maxaa la lahaa bitcoin uu soo baxay oo inoo keenay wax la yiraahdo blockchain iyo sidoo kale decentralization in laga dhigi karo wax walbaba anagoo taas ka faa'iideysanayno waxaa soo baxeen wax la yiraahdo decentralized finance ayaa soo baxeen oo loo soo gaabiyo DeFi haddaba decentralized services with no central authority loo yaqaana oo ah maxaa la dhahaa financial serviceski oo aanan ku xidhnayn central authority waxaa la yiraahdaa decentralized finance haddaba waxaan qeexi doonaa qaybaha uu ka kooban yahay ama componentska uu ka kooban yahay decentralized finance si adiga aad uga qaadato maxaa la lahaa wax ku anfacaysa uga qaadato macnaha videogan waxaan rabaa inuu noqdo mid si guud ama si oo xididda leh looga hadlaayo decentralized finance-ga ma raba inuu noqdo just qof aanan hore u maqlin decentralized finance maxaa la yiraahdaa in uu wax badan uu ka fahmo aan ugu talagalnay ujeedada ugu weyn aan videoyadan usoo duubayno waxay tahayba inaad wax badan ka fahantaan waxyaabahan la sheegayo haddaba decentralized finance si loo helo waxaa marka koowaad loo baahan yahay ama waxaan sheegi doonaa saddexdaas qodob haddii la helo decentralized finance saddexdaas qodob uu ka kooban yahay kow waxay tahay si decentralized finance u helno waa in la helaa horta decentralized finance-gaas infrastructure uu ku dhisan yahay sida in la helo kombiyuutaradii ama blockchain-kii oo lagu dul dhisi lahaa uu ku dul shaqayn lahaa maadaama decentralization markii aad maqashidba la rabo inay kugu soo dhacaan shay oo maxaa la dhahaa dunida ku faafsan qof walbaba uu markaas wax ka geysan karo uu validate gareyn karo dadka markaas ay wada khusayso haddaba decentralized infrastructure loo baahan yahay decentralized infrastructure maadaama loo baahan yahay decentralized finance wuxuu isticmaalaa infrastructure-ka Ethereum oo runtii Ethereum hore aan usoo marnay Ethereum haddaadan hore u maqalin ama aadan waxba ka aqoonin waxaa ku laabataa cashiradeeni hore oo aan uga hadlaynay top 5 cryptocurrencies oo halkan aan idiin soo saari doono halkaas waxaa ku qeexnay Ethereum maxaa la dhahaa sidee ku imaatay maxay qabataa
haddaa si guud u dul maro waa Ethereum waa maxaa la dhahaa platform suurtageliyey in aad infrastructurekaas ama blockchainkaas aad ku dul dhisan karto applications kuwaasoo adiga kaa madax banaanaanayo oo codeskooda qori doontaa kadibna codeskooda aad qortay markii aad employ gareyso oo aad maxaa la dhahaa oo aad saarto wax loo yaqaano blockchainka adiga way kaa madax banaanaan doonaa waxba kama bedeli kartid codeskaas sidaa u qortay ayay u dhici doonaan waxaana la adeegsadaa oo ay adeegsadaan Ethereumka smart contract wax loo yaqaan hadaba componentiga koowaad la rabo in la helo markii decentralized financing waxa waaye infrastructure in la helo waxa dooranay Ethereum oo ay ku shaqeysaa sidoo kale waxa u baahanahay decentralized stable coin oo ah iyadana stable coin hadii aadan iyadana fahansaneen isla videogaas top 5 currencies ka uga soo hadalnay maxaa la dhahaa stable coin iyo tusaalooyin kamid ah stable coin iyagana halkaas aan idin soo saari doonaa haduu alla yiraahdo videogaas dib ugu laaban doontaa hadaba stable money ama decentralized stable money waxa qaadan doonaa DAI oo iyadana sabab badan oo adkeynaya in sabab in la qaato iyada ay jirto laakiin waxaan ku soo gaabsanaynaa maadaama aan rabo inaanan maadaama aan rabno in si basic qofka uu fahmo oo wax guud uu ka fahmo waxay tahay DAI waxa loo doortay maadaama iyadana ay tahay token ku dul dhisan Ethereum infrastructure-ka oo native ay tahay hadaba decentralized maxaa la dhahaa waxaa helnay decentralized infrastructure waxaa helnay decentralized stable coin ama stable money aa helnay oo ah DAI hadaba componentiga saddexaad wuxuu noqonaa marka in aan helno serviceski kale cidii qabanaysay oo ah dabis kale oo waxaa jiro applicationo ama decentralized applications kuwaasoo noo qabanaya shaqooyin kala duwan oo serviceski noo qabanaya financialka ah sida decentralized exchange oo kala dada soo qaadana wuxuu noqonaa decentralized financialka qaybtiisa koowaad oo ah decentralized exchange oo ah isagana si guud uga soo hadalnay videogan video ka horeeyay oo aan kaga hadlaynay waa maxay decentralized exchange isagana halkaas idin soo saari doona hadaad hore u soo daabanin cashirkaas soo fiirso decentralized exchange waxa waaye waxa lagu dul dhisay horta Ethereum blockchain-ka lagu dul dhisay sidoo kale waxa waaye madalo ama platforms aadan u baahneen in aad iska diiwaan gelisho ina account ka samaysato ina lacag dhigato ina ID verification aad samayso intaba uma baahnid lacag kuma hayaan maxaa la dhahaa magacaaga ma siin doontid emailkaaga ma siin doontid dhammaan waxa u sheegi doontid male kaliya baboska ama meesha u tagtaa ka samaysan doonto ah exchange ina samaysid waa marka exchange oo ka madax banaan central authority aan dhihi karnaa sidoo kale waa completely autonomous free for all qof kasta aan isticmaali karo decentralized exchangeskaas marka waxay kamid tahay decentralized financing ama financial serviceska midiisa koowaad sidoo kale waxaa jiro decentralized money markets wax la yiraahdo oo iyadana ah platforms ama dabis kuwaasoo ku suurtagelinaya ama fududeynayo inay isku xiraan dadka raba inay lacag deynsadaan iyo dadka raba inay lacagtooda ay dedeemiyaan hadaba connect browsers with the maxalla lenders alla applicationada noocaas alla marka applicationada noocaas waxay maxalla lahaa waxay sidoo kale suurtageliyaan in hadii aad tusaalahan waxa jira wax la yiraahdo cryptocurrency collateral oo ah in cryptocurrency-gaaga aad ku qaadan karto deyn adigoo applicationska isticmaalayo waxa sameyn doontaa tusaalahan Ethereum oo kala haysataa waxa u baahan tahay stable coin inaad qaadatid deyn ahaan kadibna aad maxal lahaa aad Ethereum kaas ama stable coin kaas hawlo kale ku qabsato laakiin rahan ahaan uu kugu yaalo cryptocurrency-gaaga qaabkaas la yiraahdo marka waxa la sameeyay xitaa policy la sameeyaa oo iyadana ah maxal lahaa deyntaas ku suurtagelinaa gadaal ku arki doonaa markii aan insuranceski waxaas arki doonaa laakiin muhiimaddu waxay tahay decentralized money marketskaas waxay tahay applicationada ku suurtagelinaa inaad loan qaadato ama aad lacag qof deymiso iyo ka badanaa termiska oo loanka iyo waxaas qeexayo waxay ku qoran yihiin iyakan smart contract wax laga bedeli kara male qof maxal la aadayna amaankooda u sugan yahay sidoo kalena fikradda ah in maxaa la dhahaa lacagtaada waaba la gartay qofka lacagta isaga inuu deynsado oo lacag uu soo deynsado oo faa'iidada ku jirto dareemi karna qofka wuxuu ku qabsanaa laakiin qof inuu lacagtiisa isaga qof deymiyo muxuu ka faa'iida waxaa jirto wax erebixin oo maxaa la muddadii u dambeysay soo korortay oo ah dadka inay
lacagtooda cryptocurrency-ga ay deyn ahaan u bixiyaan oo application suurtagelinaya jiro marka deyn ahaan u bixisidna hadhow iyadoo interest kuu wadato inay kuu soo celiyaan oo saas ay lacag ku sameeyaan qaabkaas in lacag loo sameeyo waxaa la yidhahdaa yield farming oo iyadana waa maxaa la dhahaa aad uu sanadihii u dambeeyey wax oo dadka ay fahamsan yihiin waayo oo dakhli laga sameeyo haddaba meesha waxaan uga faa'iidaysanaa haddii erey bixinayada noocaasa oo ku saabsan cryptocurrency-ga haddii aa u baahan tahay in wax badan ka ogaato si maalinla ah waxaa usoo dhignaa pageskeena iyo sidoo kale profileskeena social mediaha kala duwan ee Omaya Exchange sida Facebookga, YouTubeka, TikTokga iyo dhammaan platformskeena erey bixino kooban oo mid kastaba iyadoo definitionkeedii leh iyagoo listis leh iyo iyagoo aad loo soo habeeyey aa ka fiirsan kartaa sida cashiradan oo kale aa u daawatid iyagoo oo erey bixino oo lagugu talagalaa ka fiirsan doontaa haddaba marka financialska intaas kuma koobne serviceska xitaa intaas kuma koobno iyakana waxaa la samayn karaa inaad serviceska aa isku dul isticmaashid sida wax loo yaqaano waxaa jira wax loo yaqaano legos ama money legos oo kale aa dhahno hadda termkaas oo kale ka soo qaadna maxaa laga wadaa in waxaa laga wadaa lacagtaada lacagna ma ahane waxaan ula jeedaa in aad serviceka la isticmaashid ama serviceyo badan inaad la isticmaashid oo saas ay kugu suurtagelayso tusaale ahaan haddii aan qofkii u baahan oo kale tusaalahaana ku fahmi doontaa qofkii u baahan hadda sawirkan halkaan soo saari doono waxaa ku arki kartaa in tusaale ahaan qofaa wuxuu u baahan yahay in uu ugu dambeyn maxaa la lahaa lacagtiisa uu deymiyo cid kale hadhowna interest ahaan uu ka helo sidoo kalena deyntaas uu sii bixinayo naftirkeeda wuxuu rabaa iyada naftirkeeda in uu maxaa la lahaa insurance uu saarto oo waxaa jiro qofka inuu de rabo in riskigan uu lala qaybsado kale insurance u baahan yahay sooma haddaba wuxuu samayn karaa qofkaas oo kale marka kood wuxuu isticmaalaa service application ama database uu isticmaali doonaa oo software ama website loo yaqaano dex ag oo kuu samayn doono aa ka dhex arki doonto websitekaas waxaa waaye inaad ka dhex aragtid keliya decentralized exchangeska rateka ay wax ku sarifayaan kan ugu hooseeya inaad ka aragtid sidaas daraaddeed aad kaga dooran kartid maxaa la lahaa mid ka mid a aad ka dooran kartid aad kala dhex bixi kartid waxaa laga yaabaa marka servicekaas ama inaad isticmaashid kadib isla servicekaas markaad soo isticmaashid mid kale aad la sii isticmaashida waxaa soo heshay exchange ratekiisa yaryaha soo heshay tusaalahan waxaad dooratay Uniswap oo ah iyadana application oo decentralized kaasoo suurtagelinayo in Ethereum tokenska aad ku bedelan kartid Ethereum tokenska kale blockchainkaas Ethereum iska saaran isku kala bedelan kartid Uniswap oo kale marka kasoo dooratay servicekii hore kii kuu qabanayay dabiskii kuu qabanayay servicekaas ka soo dooratay isla servicekaas marka ka dooratay waxaa imaatay Uniswap decentralized exchange waa iyadana saa u jeedno iyada waxaa ku dhex samayn doontaa marka wax loo yaqaano exchange-gii oo Ethereum-kaaga waxaa u bedelan doontaa DAI oo iyadana ah token saaran Ethereum-ka serviceka labaada lagu qabtay service saddexaad sii samayn kartaa waxaad tagi kartaa iyadana application kale oo DAV ama AVE oo isagana ah kii suurtagelinayay maxaa la lahaa in uu kugu xiro dadkii rabay inay lacag deensadaan loan ay qaataan cryptocurrency loan inay qaataan sidaas daraaddeed marka daygii aa ku soo bedelatay wax loo yaqaano Ethereum-kaaga oo dayda u soo bedelatay waxaad amaahin doontaa marka ku dhex amaahin doontaa application-kaas si interest hadhow aa u heshid lacagaa kaa baxday marka iyadana sa insurance u heshid waxaa jiro iyadana applicationo oo iyadana Nexus ama Mutual la dhaho oo muhiimadda ugu weyn ay qabtaana waxay tahay in adiga ay kuu sumayaan tusaale waxay sameeyaan pool ay sameeyaan poolkaasaa marka lacagaha dhan ku bixin doontaa oo waxaa gali doontaa wax loo yaqaano insurancegaasa marka wuxuu kuu suurtagelinaa in poolkaas qof kastoo ku jira uu kula qaybsado riskigaaga haddii lacag tusaalaan lacagtaadii ay kusoo laaban weyso ama wax ku dhacaan ama crashin uu qiimo ku dhaco inay kula qaybsadaan mutual risk allaha riskiga way kula qaybsanayaan waa insurance ay geli karto kadibna insurancegaas dadka kula jiro poolkaas ay riskiga kula qaybsanayaan haddaba meeshaas waxaan ka aragnay in lego wax la dhacday oo ah services badan in laysla isticmaalay serviceskaas inay suurtagalaanna waxaa noo suurtageliyay wax loo yaqaano decentralized finance
haddaba decentralized finance waxaa ujeednaa inuu yahay shay wax badan ka bedelay maxaa la lahaa financiga si guud waxaana jecelnahay waa weli aali uu maroyaa xiliyadiisi ugu horeeyey isbedel waaweyn iyo service intan ka balaaran in la heli doono kaliya waxaan kuula talinaa in aad marka koowaad horta haddii aad decentralized finance aad isticmaalayso ama daabiskan aad isticmaalayso in horta marka koowaad service kasta isticmaalayso inaad aqoon badan u leedahay oo aadan iska gelin adigoonan aqoon badan u lahayn maxaa la dhahaa sidoo kalena serviceska qaar waxaa ogaataa in qayb ahaan ama qayb ka mida ay tahay centralized oo isaga dhan uusan centralized decentralized uusan wada ahayn taasna waa iska ilaalin doontaa advantageska ugu waaweyn aan geli doonaa oo uu leeyahay decentralized financiga decentralized finance advantageskiisa waxaa ka mid ah kow inuu yahay transparency oo mid hufan uu yahay faa'iidada labaad uu leeyahay waxay tahay in uu yahay mid aad sida hadda hore usoo sheegno kale lasla dhex isticmaali karo waxyaabo badan sida isla shaqayn inay imaan karto oo applicationada dhexdooda aad shaqo badan aad ka dhex qabsan karto midda saddexaada waxay tahay decentralization oo ah iyadana faa'iidadiisa ay ka mid tahay inuu decentralized yahay sidoo kale qof walbaba inuu isticmaali karo haddaba intaasaa waxay ahayd inta aan isiri qof maxaa la dhahaa cryptocurrency waxba kama fahansana inta badan iyo sidoo kale maxaa la dhahaa decentralized finance hore uma maqlin oo wax badan iskuguma xirneen haddii la dhihi lahaa u sharax way ag fadhin lahaa sidii aan ugu fahansiin lahaa ama ugu sheegi lahaa qaabkaasay ahayd waxaan jeclahay inaan wax badan ka fahantay haddii aad videogan uu yahay video ugu horeeyey aad daawato waxaan kuula talin lahaa inaan videoyadii ka horeeyey oo waxaan laga sheekeynaya dhan waxay ku sal xiran yihiin bitcoin maxaa la ama cryptocurrency maxaa la inaad soo daawato oo halkaan aan kuusoo dhigi doona hadduu alla yidhaahdo sidoo kalena inaad youtube channelka subscribe garayso si cashirada soo socda hadduu alla yidhaahdo aad ula socoto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu